السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام عليكم قالي دمان مال والبو أدوني كجوكتين بريان كلا مقنيني برينا يا ما بريدين سيتين في عنتين حال دين. الحمد لله رب العالمين إنك إلهي ونوكر قار نعمة ربي أكجرنا إله وأذا نسيه نوسي هذه ألابتان أوجيدين روتيغان وحير أو بسيط أو سهل أنك سمي بور سكر leebito cusbo yar iyo biyo qandaca isku qase gacantaada haddii ilaahay wax kuu baro wax yaroo haysatida wax fiican ama macaan aa ka dhigan kartaa. Marka gabdho waxaan arkay intay supermarketka waxyaalo badan oo qaali ah kasoo gadaan ay dhahayaan waxaan sahal waaye gurigaagu ku dhex yaalaa wax basiid ah waaye abaay adiga haddii adiga aa haysatid oo ilaahay wax ku siiyo dadaan haysaninaa jiro wax qaali ahna dadka wax sahal oo basiid ah oga dhigin. الله يعز النعمة نعمة إلهي كسي الحمد لله ده إله أداء إيسي هذه ده تذا أن هلي كريم وحاء هي ستد إنت أن هي سنين الله سيده دتكاس إلهي وحب أموينين هذه وحي إلهي أوكسي دتكاس أموينين إن الله يرزق بما شاء بغير حساب إلهي ومديس حساب لا أنا وإرساقا البرقسيا قفكاس أو وحبه سنين لغسين كرام marka adiga nicmada aa ku jirtid alxamdulillah meeshii aa ka dhihi lahayd ha dhihin intaa alaabo qaali ah soo gadid oo macnaha fish jiis oo qaali ah iyo maxaan ku iraahdaa hilib dheyle ah iyo adduun inaa soo gadid ha dhihin waxaan sahal waay gurigaagay ku dhex yaalaan dadaan haysanin waxay cunaana joogaan ilaahay ha siiya annagana ilaahay ha noo siyaadee nicmada ilaahayna siiyey ha yaraato ha weynaato ina ilaahay ugu shukrana waay nicmada adduunka ugu weyn horta caafimaadka waay caafimaadka qaali waay lama helo marka inta xanuunsan Allah caafiyo inta caafimaad qabtana ilaahay ha u siyaadiyo intaan haysaninne ilaahay irsaaqada waasaca nooga wada dhigo intaan haysanin ha siiyo annagana Allah ha noo siyaadiyo alxamdulillah rabbil caalamiin aniga wax basiid oo sahal waxaan u aqaanaa inta badan burko kaleeto hadda guryaha inta badan waa laga helaa sababtoo ah waa shayga ugu raqiisan oo la heli karo. Maxaa ku soo haray sokorta asaaska waaye oo shaah iyo qaxwo iyo waxba lagu darsadaa qofkii heli karo dadaan heli karin aan soo arkay aniga wallaahi oo joogaan adduunka oo wadankina ku nool marka jeeska waa laga fiican yahay waxyaalo badan oo qaali ah adi hadaa haysatid oo aa soo gadatay ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo adaa ii siyaadi umadaan haysanin ilaahow sii dheh wax basiid oo sahal oo la heli karo guriga qof walba gurigiisa yaalana ha ka dhigin haddii adi gurigaaga oo yaalo ma fahante. gabar kaleeto waxaan arkay iyadan inay Yurub joogta oo maleynaya oo dhehaysa gabdhaha Soomaaliya jooga waxaan kula talinaa armaajada inaysan iska dhex dhigin qolka jiifka oo meel gaar ah u sameystaan abaa adi waxaan ku weydiinaa malgacad dahab adoo afka kuugu jirto ma dhalatay Soomaali ma tiid miya Soomaali ma ka imaanin miya dada 9 cunug qol jiingad ee ku dhalay oo noloshoodana ku qanacsano ilaa hadda ku jiro haddii adiga oo dhul gaal aad joogtido gaalka ileen dhistay guriga adi ma dhisanine oo qeybna oo jiifkaaga dhigay qeybna oo armaajada kuu dhigay dadka dhan ha u malaynin sidaadoo kaleeto dadaan haysaninaa jiro alxamdulillah dheh nicmada ha ku jeesjeesin dadka ha u faanin alxamdulillah rabbil caalamiin dheh. marka walaalahayga qaaliga ee waxaa waaye gabdho badanaa arkay oo ka dhigaayo markay dhasheen ilaa ay hadda dadaa jiro markay dhasheen ilaa ay hadda nicmo ku dhex jiro laakiin jeeska iyo ma fiicna sida aaminsanayna hadda YouTube wax laga soo doonay irsaaqad waaye in laga wada shaqeysto oo wax laga wada helo oo dadkana wax wanaagsan la wadaago marka hadalka wanaagsan xataa sadaqa waaye waxa dadka la wadaagaysid waxa dhahdaa aniga waxaan qaaliga ku soo gaday waxaan maxal ahaa waxaan ka sameeyay wax qaali ah hadhiin guri walbo wuu yaala hadhiin dada biyaha dhulka hoostiisa ka doonayo
dadaa waxay cunaan haysanin. alxamdulilah rabbilcaalamiin. ani waxba sida waxaan u aqaanaa. hadda ani sidaan oo kaleeto bur iyo leebit iyo waxaan isku daray. gacantaada haddii ilaahay wax kuu baro oo cajiinka si fiican iskaga qastid oo aad macnaha waa qurxin kartaa waana macayn kartaa, ma fahamtay. rootina qof walba aa yaqaano ama meel walba laga cunaa. rootiyaalka oo foornada macnaha aniga rootiga hadda markaa aan wax haysto wax nafaqo leh waa ku darsadaa, ukunaa ku darsadaa, caanaa ku darsadaa, subagaa ku daraa. laakiin haddaan haysanin waxaan ka dhigi karaa rootigii nafaqada lahaa camalan ka dhigi karaa, waa qurxin karaa, cajiinkaas si fiican u qasaa. tanoo kale ani waa dhihi karaa haa gurigaaga waa ka dhex heliho wax iska basiid ah waaye. laakiin neef dheelaa intaad soo qalatid oo firiijka aad ku aruursatid hadhihin gabar walbo gurigeeda waa ka dhex heli kartaa, way heli kartaa, wuu dhex yaalaa. hadhihin gurigaaga hadduu dhex yaalo guryo uu dhex oolinaa jirto. marka waxaa waaye alaabtan waxaa la dhahaa horta iga raali noqda, waxaa la dhahaa karozana la dhahaa. qofba siya u samaysataa. ani fatayra u kasaa, laakiin sisin yaraa korka aan ka marmariyey. jiiska oo 3 geeska ah aan ku lalaabay aan dhexda ka geliyey. saan le loo lalaabaa burkaan. marka haddii adiga taqaaniday gacantaada kuu taqaano sahal waaye. anima ku dhahay qof walba wuxuu yaqaanaa aqaanaa ma ku dhahay. inta aqaanana adiga inaad aqoonina laga yaabaa waa kula wadaagaa. marka alaabta saasay kusoo baxday maasha allah tabaaraka raxmaan. quruux dahabi dahabiyay noqotay. qeybna xabad soodaan ku shubay, qeybna sisinaan ku shubay. maasha allah si fiicanna way u bislaatay. waxaan khafiif uga dhigaya cajiinka oo u balbalaarinaya waxay tahay saana usoo fuurfuura haddii oo la dhigo. sababta ee markii aan sameeyo kadib oo aan saas u lalaabo waa dhigaa mar kale soo qamiiraa. xabad ukuna ii taalay, waxyar qal ah waxyar saliidaan ku daray, korkaa ka marmariyey. sisin iyo xabad soodaan korka uga shubay. maasha allah tabaaraka raxmaan. igu dil amar la-aan oo noqday. marka 5 kuus oo ahay markii hore 5 kuus hal xabaa kasoo haray. macnaha saxanka wuu buuxsamay. halka xaboo kasoo harayn 2 xaboo rooti ahoo isku shub aan ka dhiga oo ha socoto sababtoo cajiinka inaan tuuro ma rabin. meelna inaan dhiga ma rabin sababtoo markuu freeshka yahay ku fiican yahay inaad samaysatid. hadda horta mar horaan bacunay maasha allah tabaaraka raxmaan. ilaahay noo daawiyay waana dhameysanay. rootigii anaba ka horeeyay kan iyo rootigii hor dhamaaday 2 xabo loo ahay. maasha allah kor iyo hoosna wuu ka gaduutay mana iga gubanin. heer sare she's not beerdaro. waa kaasaa maasha allah. marka walaalahayga qaaliga ibliis haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe ii saar. haddii aad hore iila joogtana aad kuugu mahadcelinaa waqtigaaga quruxda badan. waxaan gaarnay 3,500 aan gaarnay. 1,500 ka dhiman 5,000. intaasi in ka badan waa idinka rajeynaa maasha allah haddii ilaahay yiraahdo. marka waxaa waaye hana la iga raali noqdo sababtoo aniga youtube-ka aada u daawadaa, waa ku xiranahay. gabdho badanaa ku xiranahay rootiin soo gudbiyo, nadaafada maasha allah, cunto karinta, gabdhaha jirka wax lagu qurxiyo aada ugu xiranahay. marka waxyaalo badan aan soo arkay ama aan soo maqlay waxaan ka xanaaqay. marka wax qaali ah oo maalan qof walba uusan heli karin in la dhaho waa wax iska sahal ah oo gurigaaga aad ka dhex helaysid. guri walba wax dhex yaalo ilaaha og. guri walba waxa laga isticmaalo ama laga cuno ama lagu joogo rabbi subxaanahu wa tacaala bas ka warhaayo. marka saas darteeda gabdhaha oo saas u hadlaayo ama u dhaqmaayo waxaan dhihi lahay isqabta isceliya. sababtoo anaga dad muslimiin ahaan nahay. faqriga iyo dhibaatada iyo maxaa la dhahaa ii sheeg xanuunkane ma ahan in oo anagana loogu darnaanayo ma ahan. waa ilaahay ugu dhawaano oo aan ilaahay soo xasuusano oo dikrigii ilaahay aan soo xasuusano. sababtoo haddii batraan lagaa dhigo wax walba gacanta lagaa saaro dhinacaaga la dhigo
oo lagu dhammaystiro ilaan qof dhammaystiran iyo meel dhammaystiran ma lahan rabbi subxaana wa tacaala dhammaystirane waxaa laga yaabaa inaan takaburno salaadii aan ka tagno dikriga ilaahay aan ka tagno marka ani waxaa aaminsanahay faqriga iyo dhibaatada iyo xanuunka iyo jiradaba inuu ilaahayna soo xasuusinayo alxamdulilah rabbilcaalamiin on ilaahay ugu dhawaanayno marka saasay iga ahayd sheekada mana casabin mana xanaaqin bas gabdhahaasaa rabay inaan wax u sheego waa kana rootiga ujeediin 2 xab rooti oo ii noqday hal kuusaa kasoo haray 5 kuus oo markii hore aan kuuskuusaayay marka waa idin salaama walaalahayga qaaliga ee hala is cafiyo hala isu duceeyo ilaahay aan barino ilaahay wadankan nabad ha nooga dhigo arsaaqadan ilaahay waasax ha nooga dhigo awlaadana baari allah ha nooga dhigo intaan waxaysanine wax kheyr qaba allah ha siiyo annagana nicmada ilaahay ha noo siyaadiyo fi amaanillah